liibaan allaha caafiyo u dhaay axmed fj adna iskarantiin magaalada ha ku saydhin xanuunkeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel walba dadweynaha ka joogtaan channelka adiga la socotaan waa axmed fj official aad iyo aad baan idin salaamay asxaabta qaali maalmahan dambe horta socod baa ku jirnay maalmahan dambe waxay ahayd magaalada kala barashadeedii waqti badan baan ugu dambeysay marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay su'aalo aad soo weydiiseen inaan idinka jawaabo mana raba hadal badan aan ka soo jeediyo meeshan marka waxaan rabaa bal su'aalo yar yar oo igu soo tuurteen oo dhan Instagram ahaataya xataa call ahaataya inta baad igu soo weydiiseen ayaan rabaa inaan ka jahaysaaro waayo mar walba waxaas weydiinsan ninkii Axmed FJ ahaa muxuu culumtan uu wadaa maxay muu naga soo garbaxo ma garatan marka bal horta dib baa ka sheekaysan doonaa laakiin horta inta ugu horeysa waxaan ka jawaabi doonaa su'aalaha su'aasha koowaad waxay leedahay waan ku salaamay su'aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo had iga jaahil bixisaabado sababta aad uga tagtay Malaysia haddana Soomaaliland uga soo noqotay buu dhahay ninkaas sababta aad uga tagtay Malaysia ugu soo laabatayna Hargeysa waxaan ku leeyahay horta su'aal qurux badan baad weydiisay waan jeclaaday Malaysia inaan waqti badan joogo laakiin waqtiga ay saamix waayay muraad kalaan yeeshay sidaa darteed baa Hargeysa u imaaday Hargeysa laftigeedana insha Allah ma sii joogi doono hadduu Ilaahay idmaayo waqti yar baa ku qaadan doona marka waxa dhici doonta inaan meel kale u taraafil garayo kullayna waxaad ku xidhantay channelkayga waad arki doontaa wax walba hadduu Ilaahay idmaayo marka bal su'aasha kale ee iyaduna aad kale isoo weydiinaya rabaa inaan ka jawaabo cudurkii saaxiib mar labaad iska baar buu dhahay waayo liicata ayaa laga helay hadwaad la kulantay buu dhahay wiilkaas faamilkaaga ilaasho aad iyo aad baad u maadsantay walaal qaali walibana hooyaday macaan baaba aan la joogaayo waa ceebta inaan hooyaday macaan ma garanaysaa balaayada la soo doonto horta boqolkiiba sharaf korkaaga haataan ku leeyahay horta cudurkan waa waxa lis ilaahay intii uu ku riday ma garanaysaa korha uga hayaan leenay intii de ku dhimatayna ilaahay ugu naxariistaan leenay laakiin waa wax aan ninkii saaxiibkii ahaa isagana Allah ka caafiyaan leenay inkastoo hadda caafimaaday aniga de xanuunkii saaxiib mar labaad iyo mar saddexaad waa bahal aan iska baaray labaad iyo mar saddexaad ba ibaal mariyay isku mana aan arkin marka aad iyo aad ba adiguna su'aashaada ugu mahadsantahay waxaan rajaynayaa inaan kaaga jawaabo halkaas aan kaga imaan doona haddana waxaan ka jawaabi doonaa bal su'aasha xiga qofka xiga waa Hiba Maxamed waxay dhahday war ninkan boorsada ka dhiga way dhahday aawi reerkiisa war waxay dhahday ninkan boorsada ka dhiga aawi reerkiisa boorsadii waa inaan soo qaataan ka baqanaya boorsadaas idinka horta mar badan waad ku wareerteen ninkan ma haftoolay baa taagantiin ninkii Axmed ma haftoolay baa war haftoolay mihi badanka jaajarada iyo wixii yaraay aan u baahanayo dhan baan qaataa badankana waxa iska jecelahay udgoonka moogti marka barfuun yar baan qaataa meel walba marayo ma garanaysaa shaxshaxda ma garata ilaa awlaad jacayl lagu dhalayna noqonaa wanaagsan moogti marka waxaan rabaa su'aal yar oo kale iyaduna aad iyo aad u muhiim oo qalbigiina mar walba ka dhex dhawaaqaysa in aad idinkaga jawaabo liibaan allaha caafiyo u dhaay axmed fj adna iskarantiin magaalada ha ku saydhin xanuunkeed faraada horta cilmi kala tahay magaalada saaxiib qaali ku saydhin meena xanuun dadka masaakiinta waxyaabo fara badan oo magaranaysa xanuun ka caawiyaan haysan aan xanuunkii u keeno maahan anaaba magaranaysa kala baqanaya alxamdulillah ilaahay uu naga nabadgeliyay anigana nin la soo baaray oo la soo habeeyaan aha de qofkana aan la soo baarin misana aan cabirkiisa la soo dayurad ma la soo saaro markaas oo socon kulay brother waxana waa wax xubo adigana kulay de taageeraha jecel baa tahay su'aasha aad weydiisana waxay si yani hadii wixii ay ugu dhacaan oo kala aan uga cararo dadka dhexdooda thank you waan kulay aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan isla eegi doonaa bal su'aasha xigta hadana bal cudurkuun baa wali dadka ku wada dhex jiraan su'aalaha aad ku tirada badan waa cudurkii qofkaasina wuxuu dhahay Axmed FJ baaritaan rasmi ah ayaad u baahan tahay buu dhahay maadaama liicata cudurkii laga helay saaxiibkii hadii laga helay waxa dhici karta waxaan maqlay aniga sheeko ama dad aan aqaan waxa ku dhacday guri dhan waxa dhacday in laga helo dadkii oo dhan laba qof oo kaliya tan laga waayay waa qoraalka Ilaahay asxaabta qaaliga de Ilaahay baan aniga iga nabadgeliyay anigana waxaan iska hayday nin iska ducaysan moogtay Ilaahay baan ka magan galay inta xanuunsanna mar labaad iyo mar saddexaad ba Allah ka qaadan leen bal su'aasha xigta ama su'aasha ugu dambaysa ayaan ka jawaabi doonaa su'aasha ugu dambaysa misana aan ugu talagalay inaan ku soo xidho barnaamijka kale su'aalo fara badan ma soo qaadan su'aashana waxa weeyaan waxay dhahaysaa walaal qaali waxaan ka codsanayaa in aad gabadhaada soo fadhiisiso YouTube يعني gabadha dad badan qof walba de lahjad buu ku hadlaa qof walba system buu aqaana gabadha waxa ka hadlaysaa yani xaaskayga marka waxaas waa wax hore looga wada hadlay de idinkuna waad igu caleema saarteen inaanan magarasa goobahan keenin marka horta wan la faa'iideeyay mana jecli wala la qaali inaan keeno adigana su'aashaada waxaan rajaynayaa inaad ka heshay ama su'aashaada inaan kaaga jawaabo horta asxaabteeda qaaliga ah barnaamijkii
ama su'aalihii maskaxdeena ka guuxay misana waayadan dambe oo dhan aad soo weydiinayseen inaad haysataan barajeeniya waxaan idin leeyahay horta mahadsanidin farxad ku noolaada anigana horta maalmahan dambe oo idinka caajisay mana idinka caajisin baan dhihi karaa waana idinka caajisay maalmahan dambe waxaan rabaa shaqooyinkayga hore ka duwan in aan la imaado channelkana aan ka dhigo channel wax badan aad ka aragtaan muuqaalo la yaab lana waa idin soo wada hargeysana intaan dhinaca ka galo ayaan dhinaca ka soo bixi doonaa meel walba taageeraha ku joogaan oo imaan doonaa su'aal kale waxa jirta dadku ay isweydiinayaan leeyihiin ninkii ma hargeysan buu dhex fadhiistay ma dhex fadhiisan 67 qof ee ii saaray 167 kun ee subscribe-ka ii saaray iyo inta soo socotaba waxaan rajaynayaa inaan ku dalxiisin doono dalkooda hooyo waxaan rajaynayaa meel walba ay Soomaali degto inaan insha Allah imaan doono oo waqti ku qaadan doono taageerahayna dhamaantood aan wada raali gelin doono haddii Ilaahay maayo oo nafta Ilaahay noo daayo muuqaalkan idinka idinku talagalay aan farxad yar reeraan ugu wada daawano intaan hargeysa ka bixin idinka gobo intan bay soo gaarsiiyay 200 oo kun wax yar baa ka dhiman 20 kun wax weyn ma 20 kun caawa idinku xaafadiina dhax geeyeen weyn marka haddii uu fiidiyogan qaado 20 kun gaarsiiyay idilay muuqaal dambe xiisaleen tan ku kulmana waxa idilay no li kulantay